marka hore danjiraha ayaan rabaa inaan uga mahad celiyo waraysiga inaga ogolaatay danjire Ebyan Maxamed Saalax aad iyo aad baad u mahadsan tahay waraysiga aad siinayso telefishinka qaranka Soomaaliyeed soo dhawow cabdiqani aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa inaad noo timid oo safar dheer waliba noo soo gashay adigoo ka socda telefishinka qaranka Soomaaliyeed una yimid inaad iga qaado waraysi ku saabsan safaaradda iyo meelaha mas'uulka aan ka ahay aad baan kaaga mahad celinayaa soo dhawow safaaraddaadi weeye waa tahay aad baan anagana kaaga mahad celinaynaa sidoo kale waxaan kugu hambaliyanaynaa xilka culus lagu doortay madaxweyne ku-xigeenka golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay danjire Ebyan Maxamed Saalax marka laga soo tago inaad tahay danjiraha Soomaaliya ee wadamada Switzerland iyo Austria waxaa tahay ergeyga Soomaaliya ee xarunta xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay magaalada Geneva iyo hay'adaha kale ee dawliga haatan waxa lagu doortay madaxweyne ku-xigeenka golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay dadka Soomaaliyeed ee ku daawanaya wax yar oo kooban waxaad u dulmartaa golahan xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay taariikhdooda xilliga la aasaasay iyo waliba dalalka ku mideysan iyo waxyaabaha ay qabtaan soo dhawow cabdiqani waa mahadsan tahay assalaamu calaykum dhammaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaalida na daawanaysa haddii aan u soo noqdo su'aashaadii golaha xuquuqul insaanka oo loo yaqaano Human Rights Council loo yaqaano waxaa la aasaasay 15 March 2006 ayaa la aasaasay waa hadda muddo laga joogo 15 sano laga joogo weeyaan waxaa ku mideysan 47 xubnood ayaa waxay ka yihiin xubinka ah xuquuqul insaanka golaha xuquuqul insaanka 47daas wadan waxa weeye waa wadamada loogu talagalay inay saddexdii sanaba hal mar ay ku jiraan Soomaaliya for example anaga waxaan soo galnay 2019 kan soo galnay sanadkan waa sanadkii noogu dambeeyay insha Allah waxaan rajaynaynaa inaanu dib ugu soo noqono 2022 ilaa 2024 oo waxa inoo ogolaanay sharciga ayaa noo ogolaanaya qofka hadduu markii ugu horeysay ay tahay inuu soo galo waxa loo ogolyahay mar labaadna inuu ku soo noqdo laakiin marka saddexaad hal sanaad ka maqnaanaysa marka golaha xuquuqul insaanka sidan ku sheegay waxa lagu aasaasay golaha ururka waxa lagu aasaasay xarunta qaramada midoobay New York baa lagu aasaasay qaraar baa jira la yiraahdo 60/251 iyo qaraar kale oo la yiraahdo 5/1 marka labadaas qaraarka horeeto waa qaraarkii lagu yiri waaba in la aasaaso Human Rights Council in la aasaaso qaraarka labaadna waxa loogu dhameystiray habraaci ay ku shaqeyn lahaayeen hoggaanka Human Rights Council-ka haatan waxaa madaxweynaha gabar u dhalatay wadanka Fiji waxaana ay sanadkan bay ka tahay 2021 waxaana ay leedahay afar madaxweyne ku xigeen waa Soomaaliya Bahama Bulgaria iyo Netherlands waana rotation weeyaan shanteednaas waxaan kala soconaa shanta qaaradooda adduunka kala soconaa sanad walba qaarad baa waxay noqotaa madaxweyne noqota afarta kaleetana waxa laga soo doortaa groupkooda laga soo doortaa hadda for example aniga Soomaaliya uma taagni waxaan u taaganahay Africa ayaa soo dooratay waxaan matalayaa Africa ayaan ku matalayaa golaha xuquuqul insaanka waxa weeye qofka hadduu rabo Google-ka iyo wuxuu ka helayaa website-yadooda buu ka akhrisan karaa laakiin waxaan rabaa dhowr qodob inaan kaaga sheego hawlaha especially hawlaha ay qabtaan iyo maxaan ku iraahdaa si important u tahay ama muhiim u tahay golaha xuquuqul insaanka waxaa jira hawlaha ay qabtaan waxa ugu muhiimsan waxay leeyihiin shantii sanaba hal mar ayaa wadamada adduunka oo dhan oo 193 ka kooban la soo saaray miisaanka xuquuqul insaanka marka wadan walba waxa laga rabaa inuu hor keeno ummadda horumarka wadankiisu gaaray horumarka dadkiisu maaragtay ay gaareen horumarka maxaan ku iraahdaa dhinaca xuquuqul insaanka wadankaas uu ka gaaray xuquuqul insaanka marka waxa lagu cabiraa 9 qodob baa lagu cabiraa oo qof walba ama wadan walba uu iska fiirinayo inuu buuxiyay 9kaas qodob 9ka qodob hadii ay dawladaha ay soo buuxinin ama ay hal ama laba ay marayaan waxa aad loogu encourage gareeyaa inay marka labaad ay soo noqonayaan inay arrimaha ay soo dhameystiraan marka la keeno waxa la siinaya waxa soo maaragtay talooyin loo soo jeedinaya sidii ay horumar uga sameyn lahayn xuquuqul insaanka hadda for example Soomaaliya May 6 waxaanu difaacnay markii saddexaad oo aynu nala soo saaro miisaanka xuquuqul insaanka aan run ahaantiina aad ayaan ugu faraxsanahay laano horumar aad u weyn baanu ka gaarnay 9ka qodob
oo loo yaqaano human rights and international treaties loo yaqaano 6 bay Soomaaliya buuxisay oo waliba maartay madaxweynayaashu ay saxiixeen tusaale waxaan kaaga soo qaadi karaa xuquuqda carruurta oo kaleeto waxa weeye waanu ratify gareynay waanu saxiixnay sidoo kaleeto hadda recently madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu saxiixay xuquuqda dadka naafada ah oo maartay iyadana aad loogu baahnaa marka Soomaaliya 9kaas qodob oo 9kaas maartay la iska rabo waxa weeye 6 baanu maraynaa inaanu dhamaystirnay run ahaantii wadan ka soo kabanaya dhibaatooyin ka soo kabanaya civil war ka soo kabanaya dhib badan ku soo dhacay iyo haddana horumarka aynu ka sameynayno dhinaca xuquuqul insaanka waxa weeye waa wax maarta kaafi kala dheeri weeyaan aad baan ugu faraxsanahay inaanu wax badan iska bedelno si aan faastan ku soconnaa inaanu adduunka la jaan qaadno inaanu adduunka waxyaabaha ay xeerinayaan oo la important u ah inaynan ka maqnaanin 30 sano aanu maqneen marka kama maqnaan karno maaragtay horumarka adduunka ka socda waxa kale oo waxyaabaha kale oo ururka aad u qabto waxa kamida for example waxay leeyihiin ururo ma waxa la yiraahdaa independent experts dad khibrad leh oo shaqooyin loo diro hadda for example Soomaaliya gabar ka socota Sierra Leone ka socota ayaa waxay noo tahay independent expert khabiir ku takhasusay arrimahaas inuu wax ka soo qoraan reportkeeda mar dhow baa la keenayaa September hadii aan la idmo UN-ta General Assembly way ka akhrin doontaa run ahaantii wax fiican baa ku yaalan wada waxaan arkay draftigi baan arkay laakiin haddana saas oo tahay waxyaabo badan oo waxa jira inaan wali aynan buuxinin oo nooga baahan inaynu si dhaqso leh aanu kor isugu qaadno oon buuxino shuruudaha la iska rabo ee looga mid noqon karo Human Rights Council looga mid noqon karo dadweynaha shaqooyinka kale oo ayagana aad ka muhiimka ah waxa weeye waxay sameeyaan for example haddii wax dhacaan oo in wax crisis oo dhaco human rights crisis oo dhaco sida arintii Palestine iyo Israel dhacday guddiga ururku fariisanaya maaragtay wuxuuna sameeyay waxa la yiraahdo special session oo arinta looga hadlo sanadkii wuxuu shaqeeyaa 10 weeks bay shaqeeyaan 20 weeks kale tana waxay ku sameeyaan maaragtay emergencies-ka waxyaabaha emergencies-ka iyo xuquuqul insaanka miisaanka dadka wadamada la soo saarayo iyo marka waa urur aad important ugu ah UN-ta maaragtay General Assembly ugu ah laano waxyaabihii ka soo baxa weeye waxyaabaha General Assembly ay go'aanka politicalka ay ka qaataan ama wadankaas oo kale loo diro commission loo diro si hadii arrimahaas lagu soo cadeeyo ay ama maxkamada loo sii diro ama maaragtay hadii la ku roon yahay go'aamo kale laga qaato oo sanctions la saaro waxyaabo badan baa jira marka ururku waxa weeye urur important ah muhiim ah annagana waxa weeye inaanu kamid ahaano oo 47 xubnood kamid aanu ku jirno oo 3 sano ugu dambeysay aanu ku jirnay sanadkan ugu dambeysay aad bay noogu fiicnayd wax badan baanu ka baranay ummadii baan ku dhaxgalnay wadamo badan oo saaxiibo aanan horay wahan baan saaxiibo ku noqonay marka waa international arena waxa weeye caalamiga soo dhaxgalaysa bulshada caalamka soo dhaxgalaysa muddaanu ka maqnayn maaragtay marka waxa noo wanaagsan weeyaan toddobaadkii aanu ka soo gudubnay golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Soomaaliya waxa uu u doortay madaxweyne ku xigeenka golahaasi waxaana xilkaasi loo doortay adigoo hadda jiray Abyan Maxamed Saalax bal doorashadaasi iyo in Soomaaliya xilkaasi loo doorto adigana aad ku guuleysato nooga waran sidee ku dhacday cabdiqani mar labaad waad mahadsan tahay horta wixii alla qadarayo u baa qadaran arintana waxay ku dhacday sanadka markuu bilowday waxaanu asan Africa waxaan u dooranay madaxweyne ku xigeen safiirka Suudaan baan u dooranay oo aan kulligan isku wada raacnay nasiib darro safiirku wuu xanuunsaday marka xanuunku ka soo noqon waayay marka wana ku soo celiyay waxa la yiraahdaa Afrika waxa loo baahan yahay inaad wadan kale aad soo doorataan waa loo soo tartamay tartankii baan ku guuleystay ma ahay wax tabaruca ma ahayna waxay ahayd maaragtay dalku rooyahan ku guuleysanay oo aan tartan aan u galnay marka sidaas Afrikaanka groupka Afrikaanka ay ugu soo doorteen ayna u sheegan Human Rights Council ka qofka matali doona Afrika matali doona inay noqon doonto safiirada Soomaaliya oo fadhida Switzerland marka waa guul bay anagana noo tahay waa markii ugu horeysay oo 15 sano 16 sano ku sii socotaa markii ugu horeysay Soomaaliya ay ka mid noqoto hoggaanka sare ee Human Rights Council-ka maadaama aad tahay diblomaasiga ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee abid xilkan ku guuleystay tan iyo intii golaha la aasaasay marka hore ka waran dareenkaaga marka xigtana guushan taariikhiga ah oo ay Soomaaliya ka gaartay gudaha golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay maxay ka dhigan tahay
cabdiqani waad mahadsantahay mar kaleeto run ahaantii dareenkaygu aad buu u fiicnaa laanno wadankan matalayo waxa weeye meel walba inaanu ka muuqan meel waa laga muuqdaa ma laga maqnaadaa baa la yiri marka inaanu ka muuqano baan tartanka u galay wadamadii ugula tartamahayeen waxa weeye ayaguna sidoo kale wadankooda u raadinayeen sumcadaasi wadankooda u raadinayeen anigan ilaah baa ii qadaray inaan ku guuleysto alxamdulillah waana hawl badan aad u badan oo hawshii hore aan u hayay macna culays kale oo soo fuulay ay tahay laakiin waxaan qabaa waxaan ka bixi karno inay tahay anigoo ka faa'iideysanay fursadaas horta waxaan mahad u celinayaa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ii soo hambalyeeyay iyo dhammaan madaxda Soomaaliyeed sida maaragtay ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda inta waxa sii dheer ummadda Soomaaliyeed ee aan kuwa aan aqaan iyo kuwa aan aqooninba inay tahniyad iyo hambalyo iyo bogaadin badan ay noo soo direen iyo farxadooda ay nala qaybsadeen inaynu qayb ka noqonay hoggaanka xuquuqul insaanka golaha xuquuqul insaanka waxaan kaloo iyadana aan mahad u celinayaa wiilasha ila shaqeeya oo diblomaadka ila shaqeeya waayo la'aantood haddii aanay buuxinin inta badan hawshii safaaradda aysan buuxinin suurtagal iyo ma noqoteen inaan hawshan kalena aan galo marka Xuseen Cabdi Muuse oo ah la taliyaha koowaad iyo Saalax Macalin Abubakar oo ah la taliyaha labaad iyo Cabdiqaadir Maxamed Xuseen loo yaqaan Barxadle saddexdaas diblomaad baa ila jooga iyagaana maaragtay igu kalifay in fact inaan arintan aan sii galo ayagana hawshoodana ay si fiican u qabsan karaan marka way mahadsan yihiin dhammaan dadka ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo magacooda halkan ku soo wada koobi karna iyagana waxaan leeyahay jazaakumullahu khayr nooguna soo duceeyeen hawshan si fiican noogu dhamaato waa tahay markaan intaas kaga soo gudubno howlaha xarunta xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Soomaaliya xubin ay ka tahay adiguna haatan baad madaxweyne ku xigeen ka noqotay waxaan u soo laabanaynaa howlaha safaaradda muddo ku dhawaad 2 sano ayaa haatan waxaad ka tahay danjiraha dowladda federaalka ee Soomaaliya ee wadanka Switzerland bal muddadaasi aad joogtay waxyaabaha aad isleedahay ummadda Soomaaliyeed la wadaag ku qabsoomay inaad shacabka u bayaaniso ayaan jeclaan lahaa markaan ka soo gudbo taas ku sii raacsado su'aal kale oo ah waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay safaaraddu bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Switzerland tusaale ahaan ay u qabato maxaa kamid ah waa mahadsantahay su-aashu way isku soo noqonaysaa waa runta waxa weeye Agosto waxay noqonaysaa 2 years iyo noqonaysaa after 2 months hadii Ilaahay idmo inaan halkan aan joogo run ahaantii waxa weeye safaaraddan ummadaha kale markaan la barbar dhigo safaaradaha kale dad yar baynu nahay oo dad aad u badan ma nihin waa 1+3 waxa loo yaqaan safiir iyo 3 qof oo kaleeto hawsha taalo baaxadeeda maaragtay kuma filna waxay ahayd in ugu yaraan 10 dhalinyaro ay ka shaqeyso oo 10ka dhalinyaro ka shaqeynaysana ay khibrad ay u noqoto oo hadhow ay noqdaan dadka diblomaadka ah oo maaragtay la wareegi doono hoggaanka wadanka la wareegi doono run ahaantii wadankan waxa ku nool jaaliyad Soomaaliyeed baa ku nool oo laba qaybood ah qaybi waxa weeye already waxay noqdeen dad citizens bay noqdeen oo wadanka ay degan yihiin sharciga ay haystaan wax sidaa u badan noogama baahna qaybna waxa weeye wali sharciga lama siinin waxay ku jiraan processkii ku jiraan ay sharciga ku qaadan lahaayeen marka qaybtaas way qaybta inta badan ama ha joogeen Austria ha joogeen ama ha joogeen meesha la yiraahdo Switzerland ha joogeen qaybtaas way qaybta aad ugu baahan in loo adeego safaaradda tan run ahaantii saddexda dib mas'uul oo ila jooga howlaha way u kala qaybsan yihiin walina wax ceeba oo ama dhibaato ah oo ay la kulmeen oo jaalida ay kala kulmeen maanan arkinin waxyaabo yaryar way jiraan oo waan horaan laga xalliyaa maaragtay wixii iyagu xallin waayaan ana la keenaa markaas aanu si wada jir ah maaragtay uga tashanaa marka howlaha safaaradda ilaa ay hadda anagoo isku faaninaynin waxa weeye si habsami leh bay u socdaan dadkuna waxa weeye Soomaalidu waxa weeye way sheegayaan wax qaldan yihiin way sheegayaan marka alxamdulillah waxa dhibaan kala kulmay ma jirto ayagoon dhibay kala kulmeen ma jirto dadka halkan jooga dad maaragtay wanaagsan oo maaragtay yaqaan sharciga wadankana yaqaan weeyaan hawlo badan baa loo qabtaa for example baasaboorada kale aad bay ugu baahan yihiin hadda dhawana loo keenay baasaboorada 6 months ago baa loo keenay marka baasaboorada waxa weeye waa waxa kaliya cadeynaya qofkaas inuu yahay Soomaali
بريق هو waxaan u sameyn jirnay warqad dhalasho loo sameyn jiray qofka ayaa Soomaali laakiin hadda baasaboorada way qaataan waxa loo sameeyaa dhalinyarada isguursanayaan oo wadanka sharcigiisa haysanin waxa warqada guurka iyo furiinka iyo maxaan ku yiraahdaa wakaaladaha hadda maarta aad noogu soo batay oo dadka wadanka gudihiisa kulaha guriga kulaha ama dholol kulaha oo adduunka la kala tagay inay xoolahoodii hantidoodii loo xalaaleeyo oo sharci loo maro iyadana wakaaladahaasna waan u sameeynaa hawl badan bay wiilashu qabtaan ayaga qaabilsan hawlahaas ayaga wada qaabilsan dibna kala maanan kulminin alxamdulillah waxaan u gudbaynaa dalka Austria oo iyaduna aad ka tahay danjire sanadii hore ayaa waraaqaha aqoonsiga ah waxa ka gudoomay madaxweynaha wadanka Austria safaaradii xarunteedan waxa ay ku taalaa wadanka Switzerland Austria waxa ku nool Soomaali aad u tiro badan maadaama distaansiga idin dhaxeeyo oo labada wadan inkastoo jaar ay yihiin oo kala fog yahay adeegyada safaaradda ay qabato sidee ayaad u gaarsiisaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Austria mahadsantahay Cabdiqani in fact waxaan dhiibay warqadaha aqoonsiga waxaan dhiibay January 13keedii 2020 markan xagga taga waxaan la kulmay wasiir badan baan la kulmay oo wadanka u dhashay oo arrimo badan ka soo wada hadalnay waxa iga sii muhiimsanaa oo la kulmay jaaliyad Soomaaliyeed oo meesha joogta oo warbixin dheer iga siiyay dadka meesha jooga iyo dhibaatada haysata iyo wanaaga ay ku haystaan iyo businessyada ay ku haystaan information buuxa iga siiyay laakiin maadaama January aan dhiibay March 20keedina ay dhacday arrintii coronavirus ay dhacday oo la wada xiray meel walba la wada xiray suurtagal ima noqonin inaan dib ugu noqdo oo aan visit gareeyo waayo waxa ii qorshaysnayd ugu yaraan 2-3 jeer amal sanadkii inaan tago Austria tago iyadoo sidaa ay tahay baa haddana jaaliyadu halka joogtay waxay u baahan yihiin oo dhan waxaan ugu sameynaa through post way soo dirsadaan informationkooda soo dirsadaan waxay rabaan bay soo dirsadaan posta loogu markii loo dhameeyo posta loogu cishaa markii ilaa hadda ayaga laftigoodu sidaas way ku qanacsan yihiin maadaama hawsha iska kala istaagnin only passportka baysan u imaan karin way jiraan kuwa yimaada way jiraan oo soo drive garay way jiraan marmarka qaarkood laakiin arinta passportka waxa qofku waa inuu maaragtay uu sharci ku soo baxo oo ku yimaado Swiss ku yimaado waa inuu haystaa arintaasna ayadana wali waxaan siinaa warqad dhalashadan siinaa si aan u kaafino hawsh maaragtay ay nooga baahnaayeen Austria waxa ku nool ilaa 8,000 qof ku nool boqolkiiba 68 qof ku nool sharciga waa la siiyay waxay kamid ahayd warbixintii ay siiyaan wasaaradda ay siiyaan bay kamid ahayd waxa jira marka dad kaleeto oo aan wali sharciga qaadan baa jira sidoo kaleeto maxaa la yiraahdaa Switzerland dad badan oo sharciga qaatay dad aan sharciga qaadanin inta waxa sii dheer in dadka qaarkood sharciga loo diiday oo maxkamaddu ay diiday oo yiraahdeen dadka kani waa inay wadanka ka baxaan oo noqdaan arintaas waa arin aad very important oo inay ummadda Soomaaliyeed ay si fiican maaragtay ay u fahmaan labadaba Austria iyo Switzerland labadaba dadka Soomaalida ee jooga maxkamaduhu ay diideen wadanka la yiri waad ka bixi kartaan ama waad ka baxaysaan la yiri annaga ka safaarad ahaan dawladda sharciga u yaal wali sharciga lama bedelinin sharcigaas waxa weeye qofka Soomaaliga ah ee wadanka jooga ilaa uu isagu yiraahdo ana raba inaan baxo oo warqad noo soo qoro oo yiraahdo waana raba inaan baxo oo interview la sameeyo oo la weydiiyo oo aan ka hubino oo halka noogu yimaado oo aan anigu aan siiyo session maaragtay haduu go'aansaday oo warqad loo sameeyo inuu baxo aan la sii hadlo la sii dardaarmo mooyaane qof hadii la ku roon yahay ee dawladda Switzerland ama dawladda Austria ay tirad qofkaasaan dirayna oo safaaraddu ay saxiixayso dirayso waxaan rabaa dadku inay ogaadaan inaan jirinin voluntary ba qof ku noqon kara bas waa noqonaya ma noqonaysa ha sharciga noo buuxi inta form noo buuxi maxaan ku yiraahdaa warqadaana qor inaad noqonayso marka qasab ma jiro iyaguna way fahansan yihiin dibka jira oo maaragtay wixii annaga sharciga noo yaal cidina naga bedeli karayso laakiin waxa dhici karta in isbedesho hadhow elections hadda lagu jira hadii ay wax isbedelaan oo la yiraahdo dadka la soo cisho dadku waa inay ku si tala galaan laakiin hadda saacadaas aan joogno xukuumadda aan joogta waxa weeye qof la celinayo iyo qof maaragtay qasab lagu celinayo ma jiraan marka haddaan xaqiijiyo xilligan la joogo safaaradda Soomaaliyeed ee Switzerland iyo Austria qorshaha ugu ma jirto inay ka qayb qaadato dib u celinta dadka sharciyada loo diiday ee Switzerland iyo Austria ku nool anoo kama qayb qaadan karno laakiin dadka laftigooda waa inay fakaraan oo
qof la yiri maxkamaddii Austria ay soo diiday oo yiraahdeen wadankan waa inaad ka baxdaa qofku inuu fakara loo baahan yahay inuu distardaaran bay iga tahay laana qof dhalinyaro ah dhowr 20 jira ama 20 jira inuu meel aan waxba uga soo soconin uu waqtigiisa iyo cimrigiisa uu ku dhameeyo xogaa waa laga fiican yahay marka hadii lagu diiday waa inaad adigu laftigaaga aad garataa inay arinta tan ay tahay arin waqti un ka dhuminaysa dhalinyarnimadaada dhuminaysa xoogaaga dhuminaysa marka laakiin aska dawlad ahaan ka safaarad ahaan anagoo qof aan volunteer ku baxaynin warqad uma sameeyno waata warkaas waa cad yahay ugu dambeyntii danjire Ebyan Maxamed Saalax su'aasha ugu dambaysa ama aan ku soo gunaanaday barnaamijka dad badan oo Soomaaliyeed ayaa mas'uul ka tahay oo Switzerland iyo Austria ku nool maxaad baaq ah ama dardaaran aad hawada u marsiinaysaa adoo ka faa'iideysanaya fursadan telefishinka qaranka Soomaaliyeed SNTV ku siiyay shukran Cabdiqani run ahaantii waxa weeye aan ku hormaro Austria aan ku hormaro Switzerland aan ku hormaro ummadda Soomaaliyeed halkaan aan ugu imid reer Switzerland dad mar hore yimid baa ku jira dad maaragtay dawladda ku jira dad business fiican haysta dad maaragtay dhaqaatiir noqday dad maaragtay dhalinyaro oo hadda iyagana haya wadadaas haya run ahaantii jaaliyadda Switzerland ama ummadda Soomaaliyeed Switzerland ku nool waa dad macnaha fiican dadka fiican maxaa lagu gartaa wadankoodii maysan halmaaminin mar kasta oo ay wax ka dhacaan Soomaaliya ama fatahaad ha noqoto ama abaar ha noqoto ama maxaan ku yiraahdaa dib kale soo kordhay ha noqoto ama geeri idinka dhexdiina oo wadankan dhexdiisa ka dhacday ha noqoto waxa weeye aad ay isu taakuleysaan arintaas waan idinku bogaadinayaa waa arin aan aad maaragtay uga maqsuuday waayo ummad markay meel isugu timaado waxa lagu gartaa wanaageed waxa lagu gartaa sida ay isu caawimaan oo isu halbagareeyaan sidoo kale Austria ayaguna sidoo kale weeyaan waxa weeye business bay leeyihiin 60% baa dawladda ogolaatay inay maaragtay wadanka ay joogaan sidaas oo kale meel walba oo Soomaalidu ay joogtana saas isu caawimaan oo ummadda wadanka u caawimaan waxaan rabaa inaan kula dardaarmo inay unitygooda ay adkeeyaan ummad kasta oo meel timaada marka unitygooda uu adag yahay wada jirkooda uu adag yahay wax wada qabsigooda uu adag yahay aniga ka safiir ahaan wixii ka halaaba ama ay u baahan yihiin in loo sameeyo dawladda loola hadlo waxa weeye waxaan helayaa chance aan kula hadlo iraahdo ummadan meesha joogto sharciyadaasi seenooda maaragtay hawlahaas u baahan waxa loo baahan yahay in ilgaara lagu fiiriyo marka aniga halkaas wax iiga bannaan inaan ku taakuleeyo waanu mar walbana waan u taaganahay inaan maaragtay aan helbagareeno ama wax u sameeyno laakiin inta anigu hadda ka arkay jaaliyad aad isugu maaragtay tiirsan jaaliyad aad isu jecel wax walba wada qabanayo baan u arkaa waan ku faraxsanahay markaan imid xaflad fiican bay sameeyeen soo dhaweyn fiican bay sameeyeen maaragtay marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa horta marka ugu horeysa inaa cudurkan uu naga dulqaado covid-ka oo maaragtay ummadda halakeeyay kadibna waxaan oo furmi doona inaan Austria mar kale aan ku noqdo oo arrimahooda iyagana aan galo hadda waxa weey waa isheega alxamdulillah we're in a good position aad iyo aad ay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd madaxweyne ku-xigeenka golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay isla markaana ah danjiraha dawladda federaalka ee Soomaaliya ee dalalka Switzerland Austria iyo ergeyga Soomaaliya uga wakiilka ah xarunta xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay iyo hay'adaha kale ee dawliga ah waa danjire Ebyan Maxamed Saalax oo wareysi gaar ah siisay telefishinka qaranka Soomaaliyeed wareysigan waxa qaaday anigoo ah Cabdiqani Ali Dalmar kaamiradana waxa inoo qaadayay Soomaali intaan wareysi mid la mid ah daawadayaal dib ugu kulmi doono dhamaanteedu isku duwan waxa idin leenahay aad baad u mahadsantihiin safiirad aad baad u mahadsantahay oo kaaga mahad celinaa wareysiga aad mudan Cabdiqani aad baan kaaga mahad celinayaa